لله والثناء لله والصلاة والسلام على المصطفى سيدنا رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثيل له ولا نظير له لا حلول له ولا حدوث له لا نزول له ولا هبوط له لا وزير له ولا معين له تنزهت ذاته عن النقائص تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين الطاهرين الطيبين وآله أئمة الهداة المهتدين ومن تبعهم في سبيل المكرمات وسادات الصوفية رضي الله عنهم أجمعين وبعد فيقول الله جل شأنه في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم. إخوة الكرام، كلماتكيga waxaan rabaa inaan ku saleeyo muxaadaro inaan kuma soo talagelin, laakiin culimada waxay yiraahdeen de waxun iska dheh maadaama sheekha Sheekhudiin ilaahay ha ka raadi noqde oo kalimaad culimada ahlu sunna wal jamaa iyo mujtamaca Soomaaliyeed ee iyagu ummad ahlu sunna wal jamaa ah fikir baa loo qalday, fikir ahaan baa loo qalday mas'uuliyad inay saaran tahay dadka wax garanaya wax og inay ummadda badbaadiyaan oo ay ka badbaadiyaan waxa fikirka dilaaga ah ayaa waxa ii soo dhibicday anigana inaan muxuu ahaa aan ku daro qof walba muslim ah waa safiir waxa laga rabaa oo waajib ayni ah ku ah qof walba islaam ah dambaalkii nabi Muhammad risaaladii nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam in uu gudbiyo naftiisa inuu gudbiyo ehelkiisa inuu gudbiyo asxaabtiisa inuu gudbiyo aqribada inuu gudbiyo islaamka inuu gudbiyo gaalada inuu gudbiyo ba qof walba oo muslima laga rabaa khaasatan dadkeena soo baxay oo ka soo tagay wadankii ka soo dhoofay oo u soo dhoofay wadamada reer galbeedka la yiraahdo ama ka baxsan wadankeeni oo dadka aan islaamka ahayn ay leeyihiin markaasaas laga rabo qof walba islaam arinta laga rabo waxaan isweydiinaynaa seebaan ku gudbin karnaa message-ka iyo dambaalka iyo risaalada nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam uu qof walba oo islaam ah kula khitaabay oo kula hadlay inuu gudbiyo see lagu gudbin karaa ma waxa lagu gudbinayaa caro isna cayb in la iscaayo in wax walba la yiraahdo afka in la isku tuuro ahadka aan kugu fikirka ahayn in waxa rabtid aad tiraahdid hadduu doono gaal ha ahaado hadduu doono islaam ha ahaado hadduu san fikirkaaga aaminsanayn inaad u muujisid oo tustid inaad nacab tahay fikirka masaasa loo gudbinayaa mase wax ka bedelan ayaa lagu gudbinayaa
jawaabtu waxa weeye haddii ay dhacdo sidaas inuu qofka aamino inuu ku gudbiyo dhambaalka inuu ku gudbiyo ama yuusaba ku talageline dhaqankiisu uu saas noqdo inuu wax ku gudbiyo ama laga akhristo oo dadku ay saas ku arkaan wuxuu noqonayaa qof munafir ah islaamkana diinta xiriiri ku gelinhayo gaaladina diinta islaamka ka fogeynayo hadyigii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda uu uga tegayna khilaafay ayuu noqonayaa waxaana ka rabaa markaan hadlayno markaan rabno inaan axad la mucaamaloonno markaan rabno inaan qof la doodno markaan rabno inaan qof wax u sheegno markaan rabnaa axad fekerka aan aaminsannahay nagu khilaafsan in wada hadallo ayna dhex maraan usluub wanaagsan ilaahay uu ka raadi yahay qofka bani aadamka ah naftiisana cajabinaya inaan kula hadalno nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana nebiga suuban waxaa ku sugan ku dayasho wanaagsan ayaa nebiga idinkugu sugan buu yidhi ku dayashada wanaagsan waa khuluqda iyo dabciga iyo dhaqanka iyo mucaamalada dadka kale uu la mucaamaloonayo maxaa yeelay qofka bani aadamka ah mucaamalaad badan baa looga baahan yahay mucaamalatu lmar'i maca nafsihi waa laga baahan yahay qofka inuu ogaado uu barto naftiisa intuu ku jirto uu nool yahay lafteeda siduu ula mucaamaloon lahaa waa laga rabaa inuu waafajiyo diinta islaamka siduu naftiisa uusan ugu daraan uusan naftiisa u halaagin waxaa kaloo laga rabaa mucaamalatu lmar'i maca rabbih rabbigiis siduu ula mucaamaloon lahaa oo ilaahay u caabudi lahaana inuu wanaajiyo waa laga rabaa mucaamalatu lmar'i maca ahlihi waxaa laga rabaa qofka ehelkiisa sida uu ula mucaamaloon lahaa inuu qurxiyo ee uu diinta islaamka uu ku dabaalo mucaamalatu lmar'i maca mujtamicihi qofka mucaamaladiisa uu la mucaamaloonayo mujtamaciisana waxaa laga rabaa inuu qurxiyo intaasoo dhan inay qurxaadaanna waxaa lagu heli karaa an yaqtadiya bisunnati اlmustafaa calayhi salaatu wasalaam qofka inuu ku daydo hadyigii iyo sunnadii iyo dhaqankii iyo raxmaddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebiga ilaahay wuxuu yidhi fabimaa raxmatin min allaahi linta lahu naxariis ilaahay xaggiisa ka ahaatay ayaad ummadda ugu jilicsanaatay walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik axad qalbi adag oo hadalka kan oo qof walbaba muxuu ahaaye xumaanta uu sameeyo xumaan ku abaalmarinaya haddaa ahaan lahayd waa kaa kala carari lahaayeen laakiin rabbi baa naxariis ku siiyey naxariistii ilaahay uu ku siiyey ayaa markaa ugu raxmatay ma aadan noqon marka mid xumaan ku abaalmariyo ku jaaziyo qofka markuu xun yahay uu kugu xumaan sameeyo waxaa la rabaa in aadan u caroonin naftaada waxay rabto ee aad u carootid waxa lagaa rabo adiga inaad fiirisidaa la rabaa waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ugu dhowaan lahayd iyo nebi moxamed hadyigiisa calayhi salaatu wasalaam wixii aad ka raaci lahayd oo kaga dayan lahayd inaad qiyaastid baa la doonaya naftaada iyo shaydaan waxa ay doonayaan inaad ku binaysid ma aha axadka hadduu xataa ku necab yahay hadduu kuga mucaamalo xun yahay hadduu waxun kugu suubiyo waxa weeye inaad u xumaatid ma aha xadiid waa idin xusuusinayaa xufaadda ay warinayaan ibnu xibbaanka uu warinayo dabaraani uu warinayo waa xadiid dabaraanigu rijaashii saxiixuu ku warinaya rijaalu saxiix yani rijaal hiqaad uu ku warinaya nin yuhuudi ah oo ka mid ahaa axbaarta ama dadka culimmada ah caalimiinta yuhuudda oo la odhan jiray zayd binu sacyata ama zayd binu sacna
calaa khilaafin fii ismihi magaciisa khilaafaa ku jira laakiin yacni magaca aabbihiis yaa khilaaf ku jira laakiin isimkiisa caadiga zayd baa la odhan jiray kaana min axbaari اlyahuudi culimmada yuhuudda ayuu ka mid ahaa cabdullahi ibnu salaam baa xadiidkaa warinaya yacni qisatu islaamihi siduu ku islaamay qisada uu ku islaamay ayaa kutubtu ka sheekaynayaan waa mashhuur qisadiisu nin diimihii hore yaqaan buu ahaa diimihii horu bartay marka wuxuu isu dayi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ogaado ileen dadka bartay diimihii hore waxay garanayeen sifada nabi moxamed uu lahaa diimihii hore towreed iyo injiil iyo waa ku qornayd nebiga sifadiisa calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu markaa isu tacallujiyey inuu nebiga u dhowaado oo mucaamaladiisa barto suu u arko inuu dabaqay uu daboolay sifadii towreed iyo injiil ay ku tilmaameen nebiga calayhi salaatu wasalaam marka isaga laftiisaa ka sheekaynaya wuxuu yidhi waxaan ku arkay buu yidhi wax alla iyo waxa sifo ah oo towreed iyo injiil lagu sheegay ayaan ku arkay laakiin waxaa ii dhimanayd buu yidhi laba sifo oo aan damcay inaan ku jarribo saan u ogaado oo in qofka la imtixaano mooyaane aan si kala lagu heli karin labada sifo waa maxay waxa weeye labada sifo jahli haddii qofku uu ku suubiyo ee lagu jaahilnimo sameeyo yacni laa yujzi'u bisayi'ati sayi'a xumaan haddii lagu suubiyo xumaan ku jaazinu mahayo waa mid jahliga lagu suubiyey ee lagu jaahilnimo falayna waxaa naxariis ka ahayn u ziyaadi mayso qofka hadduu jaahilnimo ku suubiyo naxariis buu u ziyaadinaysaa arrintaasaa damcay bir inaan ogaado oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka ogaado riwaayaad badan baa wax kala warinaysaa laakiin haddaan soo ikhtisaariyo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu la mucaamalooday deen buu ku yeeshay nebigu deen ku yeeshay calayhi salaatu wasalaam deentii marka madal bay lahayd ama ajal wakhti bay lahayd uu kula ballamay nebiga inuu deentaasi uu u oofiyo wakhtigii oo 3 beri ay ka dhiman tahay 3 beri ay ka dhiman tahay ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam janaaso raacay ayuu u tegey markaasuu inta go'iisa soo qabtay uu nebiga si aan aad u xuno fiicnayn uu nebiga ula dhaqmay calayhi salaatu wasalaam markuu dhaqankaas suubiyey sayid cumar ayaa fiirinayay meesha fadhiyey indhaha ka dhex bixiyey sayid cumar wuxuu yidhi markuu arkay inuu indhaha ku gubahayo isagana fiiriyey baa sayid cumar hadlay wuxuu yidhi haddaan ka baqi lahayn inuu nebiga xumaanta ku xumayn lahaa waxaan uga baqay buu yidhi nebiga haddaan nebiga ka baqi lahayn qoortaa ku jari lahaa waxaa arkay marka nebiga arkay sayid cumar suu uga xumaaday arrinta markaasuu wuxuu yidhi ana wa huwa kunnaa ilaa gayri daalika axwaja minka yaa cumar aniga iyo isagaba inaad noo carootid inaad aniga inta ii carootid oo dartay ay caro kugu qabato ee aad dishid isaga waxaan ka ahayn yaan kaaga baahannahay buu yidhi aan u baahi badanna ta'muruhu bixusni yani ta'murunii bixusni اlqadaa'i waxaa i faraysaa si wanaagsan inaan wax u guto wa ta'muruhu isagana waxaad faraysaa si wanaagsan inuu wax u gudsado baad faraysaa inta u tagtid oo meel heblo geysid waxaad u miistaa wax alla iyo wuxuu lahaa waxaa ugu sii dartaa 20 ka badan inta uu lahaa 20 dirham waxaadna ogaataa deynka uu sheegayo 3 beriyaa ka dhimano lamaba gaarinba ninkii wuxuu raacay sayid cumar wuu la hadlay wuxuu yidhi maxaa kugu qabtay oo kugu kallifay arrintaas markaasuu u sheegay arrinta wuxuu yidhi ujeeddo kale kama lahayne waxaan rabay buu yidhi inaan ogaado haddii aan ku jaahilnimo suubiyo inuu arrintii arrin la mida iigu gudahayo iyo inuu icafiyahayo inaan ogaadaan rabay marka waxaan marag ka ahay buu yidhi marka wuu muslimay inuu ilaahay rasuulkiisi yahay ilaahay inuu waaxid yahay baan qirayaa maalkayga kala barkiisana
islaamka ku sadaqaystay buu yidhi ee meel alla iyo meeshii uu nebiga u arko ha ku bixiyo calayhi salaatu wasalaam waxay dhashay nebiga raxmaddiisa haddii lagu jaahilnimo sameeyey wax walba la sameeyey inuusan jahligii uu jahli ku gudin zamanka hadda aad joogno waxaan la joognaa mujtamac aan islaam ahayn hadda ku dhex nool mujtamac aan ku dhex nool aan islaamka ahayn waddamada reer galbeedka ah dad islaamka aan garanayn loona tusay islaamka inuu yahay wax dila wax qarriba wax naca wax aan u ogolayn inta ka soo harto muxuu ahaa iyaga aan nolol u ogolayn inuu yahay islaamka saasaa loogu sheekeeyey sheekhana hadday waa maqlayseenoo xataa axadkii damca inuu soo muslimo ciriiri baa la geliyey ilaa islaamka uu naco xilka naga saaran marka muxuu xilka naga saaran waxa weeye in diinta hadda kuma gudbin karno waxaan ka ahayn lamana ogolaba diinta daahirada ah dadku wayna baran oo waxay tahay baysan baran laakiin inay jirto waa og yihiin islaam inuu jiro ummadda waa ogta waxaa la rabaa marka image amba sawir wanaagsan in lagaa akhristo sawir wanaagsan adiga mucaamaladaada qofka la mucaamaloonaysid qof walboo muslim waxaa looga baahan yahay in sawir wanaagsan laga akhristo in dadka aadan dulmin in qofka u raxmatid qofkan aadan been u sheegin qofka haddii uu wax kaa hadlay inaad iska cafisid hadduu jaahilnimo kugu sameeyo inaad tidhaahdid anagu diintayda waxay faraysaa qofkii jahliga u suubiyo inaad iska cafiyo marka uu baahan yahay inaad kaalmaysid hadduu naxariis u baahan inaad u naxariisatid hadduu waayeel yahay inaad u turtid muxuu hadduu xataa xoog badan yahay waxba uusan ogeyn inuu jaahil yahay darteed waxaa kugu sugan adiga qof walba muslima nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa dayasho kugu sugan waa gaal waxaasi wax ma dhahaysid gaal weeye waxun buu igu sameeyey gaalka gaalku dhalay ma lihid waxaad leedahay alla ilahe nebiga wuxuu nuhi alayhi salaatu wasalaam raximallaahu muusa nebiyullaahi muuse ilaahay ha u raxmado waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah nebigoo qaybinhaya sadaqo ayaa nin u yimid markaasuu wuxuu yidhi wallaahi qaybtatan waa midaan ilaahay dartii loogu talagelin buu yidhi oo ilaahay dartii aan loo samaynahayn buu yidhi markuu saas yidhi nebi moxamed oo khayru khalqilaahi ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisii ummadda uu u soo diray oo ilaahay uu u aaminay oo ahlu samada iyo ahlu ardada ilaahay uu u aaminay ah oo qayb ka badana la dhibay buu dhibka saan u yaalla wax ka badan ayaa la dhibay marka nebiga wuu sabray calayhi salaatu wasalaam wixii asaga uu ahaa oo xaliim uu ahaa ra'uuf uu ahaa raxiim uu ahaa qur'aankaa sheegayo ilaahay wuxuu nabigu ku tilmaamayaa laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waxaa idiin yimid nebi ka mid ah oo naftiina ka mid ah nebi naftiina ka mid ah yacni min anfusikum dee waa bani aadam nebigu jinni ma aha malag ma aha wax kale ma aha waa bani aadamo waxa weeye محمد بن عبد الله وعبد الله بن عبد المطلب بهدلي هويدنا امير بتوبه اللي جري ملك عرك laga keenana ma aha jinni kale waxa fahmi karin ma aha waa kamid yahay waa taqaana muaamaladiisa iyo wanaagiisa qabla islaamka yani qabla nubuwa nabinimada ka hor inta nabiga loo waxyoon inuu nabinimada soo gaarsiiyo ya ilaahay wuxuu barbaariyay adabani rabbi fa ahsana ta'dibi wa nabiga alayhi salatu wasalaam rabbigay baa idbay idibtaydana wuu wanaajiyay lidalika ay nabiga alayhi salatu wasalaam kufaaru quraysh la oran jiray qabla nubuwa waxa uu yaqeeneen محمد الامين محمد kii la aaminay alayhi salatu wasalaam hayla ilaahay baa subhanahu wa ta'ala tarbiyadiisa iyo barbaarintiisa wanaajiyay عليه الصلاة والسلام marka adinku ida kamid yahay aziizun alayhi waxa ku culus oo nabiga dhibaysa alayhi salatu wasalaam ma anitum waxa adinka idan dhibaya oo adinku dhib idin keenayo dhan nabiga alayhi salatu wasalaam waa ku culus tahay hariisun alaykum way ku dadaalaya wuxuu ku dadaalaya fiicnaantiina wax walba wanaagsan inaad heshaan ummadaha uu khayrka badan
oo ilaahay ciqaabkiisa ka badbaada ilaahay caradiisa ka badbaada raxmadda ilaahay naxariistiisa hesha inaad noqotiin ayuu nebigu ku dadaalaya calayhi salaatu wasalaam qof walba oo islaam ah oo ummadda nebi maxamed ka mid ah wuxuu nebi maxamed ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam xata al'aana asagoo qabrigiisa jooga loo geynaya camalkiisa oo ilaahay mahadinaya hadduu wanaagsan yahay camalkiisa haddii kana uu ilaahay u baryahaya yacni ummaddiisa wuu ku dadaalay calayhi salaatu wasalaam markay wax xun qof ummadda nebi maxamed ka mid ah oo wax xun sameeyey markii halkaas loo geeyay nebigu ma uu ku farxayo calayhi salaatu wasalaam markii wax wanaagsan loo geeyana wuu ku farxaya بالمؤمنين الرؤوف الرحيم مؤمنين تبعون حريصنا وأتريا يعني مؤمنين تكلية حتى النبي ما هين وحو أترها عليه الصلاة والسلام وحو نحرسها أهل السماء وأهل الأرض عالم الجن عالم الإنس عالم الطيور عالم الوحش عوالم تودم النبي نحرسها عليه الصلاة والسلام إلى يشمبروه أورت حولها النبي أي ماذا عليه الصلاة والسلام وهذا هذا حديث هذا وكلا أسوون الرجال صحيحين ودوري ورني وحاوت من النبي شمبر يرى عصفور بشمبرت راير تلي هذا الله مذا أيا المير ير وحا كقاطي رجع أصحابته كم ذا واحد شيء محوها شمبري يرى إذا شيء كقب يعني كقاطي مركز النبي قلت من الدعوة محوها كبو بوبت النبي أكتيسة النبي هذا وفهمي هذا الكل يوحد وفهم مركز وحو يري يا من فجع هذه يعني يا المهد كو أرجع حقليب ويري شمبرتة وعليا المهد وعليا عليه الصلاة والسلام نحريستي النبي عليه الصلاة والسلام عام بأهيد رحمة شاملة يعني رحمة شاملة ما هي رحمة أو إنها رحمة شاملة قفك الرحريست صاحبك كلي أو نحرسانيو قفك ويقان كلي أو نحرسانيو قفك أي وحكد حيان أو نحرسانيو قفك ودنت كلي أو نحرسانيو قفك مركز محوها وحوذاقان أو نحرسانيو كلي معها ساس نحريستو معها وحال ربا نحريستا قفك كودرا iyo qofka ku fiican qofka jeceshahay qofka nacabtahay qofka danta kale ee qofka aan kala hayn intaba inaad u naxariisatid saasuu yahay hadigu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saasa islaamka lagu gudbin karaa saasa qof aan muslim ahayn islaamka inuu jeclaado looga yeeli karaa laakiin haddaad tirahdid qofka kan muxuu ah gaal weeye gaal dhalay weeye muxuu ka ogyahay oo aad xumaan tustid islaam baa tahay waxaad sheeganaysaa islaamnimo waxaad sheeganaysaa nabi maxamed raacday axad aan diin lahayn baad la joogtaa been baad sheegaysaa asuu ku leeyahay war beenta waa maxay ii sheegaysid ceeb calayk ceeb weeye in qof aan muslim ahayn uu ku yidhahdo beenaa sheegtay ee adigana islaamka sheeganaya muxuu ahaa been sheegtay wax lala yaabo waxaa taas ka sii daran diinuka islaam diintaadu waa nabadgelyo diintaana ujeedaan ma ahan yacni diin dad wax nacda maaha nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiidta intaad aragteen axaadiid la warinayo intaad aragteen aayadaha qur-aanka mufasiriintu ay fasirayaan hal xadiid ama hal aayad oo ka mid ah oo uu nabiga qof shakhsiyadiisa u nacay gaal muslim wala munaafiq shakhsiyad qof bani aadam uu leeyahay naftiisa nabi ma nicin calayhi salaatu laga soo warin qofka marka wax nacaysid waxa la nacayaa qofka camalkiisa waxa xun qofka uu sameeynayo waad nacaysaa ma jeclaanaysid maxaa yeelay wuxuusan ilaahay ka raadi ahayn way laakiin qofka ilaaha sameeyay bani aadam weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala uuntaya iska leh yaa inac ku yiri ma adiga makhluuq ilaahay maada sameeyay maxaad u nacaysaa yaa ku dirsaday ما هجاجي كرتد ما قلوا عين كدد كليها عملك وكجرو هذا واركتد عملك إنه حياه أكوس عنته لمرة واحدة كليها أنت واحد كل حما هذا نترها وحياه عملك سواء نعبة هاي حاول نعيسى هذا إلهي يكون عكور هذا إلهي مخلوق إنسان نعيسى ما إلهي كوب الله قادو كبير مخلوق ينع وكجعلانه يعني حاول نعيسى واحد جرما واحد يعكر إسلام نمط مركب واحد رأينا كوجد بسيد مر والبابا دمبالكي يعني أن صوركي iyo naxariistii iyo isudumidii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaad dad dhibtid ama aad dad caysid ama aad dad xamatid ama aad qolo nacdid ama aad qolo fogaysid qolo gooni aad soo dhawaysatid kuma talimaysid islaamnimadii iyo masajkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma kuma talaysid waan lagu qabsanayaa qof walba oo islaam ah qof walba oo muslim ah oo aaminsan diintan daahirada ah oo raxmadda ah aaminsan hadduu sameeyo ficil keeni kara dadka aan islaamka ahayn inay kaga fogaadaan islaamnimada ama dadka muslimiinta ah inay ku dhibtoodaan keeni karaya wuxuu ku dhacay wax xaraama ilaahayna waa weydiinaya qiyaamaha maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa ma uu ogolayn dadka salaada xataa fiiri islaamka markay meel isu meel ku dukanayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka wuu kala fiirin jiray waayeelada dadka tabarta daran dadka jiran dadka danaha leh caruurta xataa yani maamooyinka hooyooyinka caruurta wata
وحير النبي عليه الصلاة والسلام أنا صلاة تكنيا يا عنق بويها يا عنق يربى بويها صلاة واد الدجنيا النبي وحده صلاة وبوسينيا إن هو يدا عنق كذا يعني إنه كف إنه ضعف سعر وبقى هي درست صلاة اللي بوسينيا عنق هو يدي يعني إنه يعني نحرست النبي عليه الصلاة والسلام مركي إنا قوح النعديد وعايسد وحكون يشد dadku ay kula xumaadaan adiga isla fiicnaatid wax walba aad muxuu ahaay xalaal iyo xaraam ba ay noqdaan wax jeebka ka soo baxa laga geliyo laga soo saaro islaamnimadu saas ma waxaan la ka rabaa marka in horta aan ahaano dad naxariis leh ku dayday hadigii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ficil walba waa sameynaysid qof muslim ah tahay waxaad miisaan kaga yeelaysaa ficilkii iyo dhaqankii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed soo dhaqmi jiray saan nabi maxamed ma yeeli jiray شريعة الإسلام كم حكتها قفك هدو برتو سيردي نبي محمد دقن كيسا عليه الصلاة والسلام هدو برتو نبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي يري حري وحال روا إسلام كو وحال هاي إن يسكن حريستان قفنا نحريس لقى هلي ما هيو قال هذا يسكن حريستان دنا يسكن لي كله يعني مع الأسف وحال يابل دتك إسلام لماذا كل شيء كوسا كري إن هذا قال كان حريس بدنتاي قالوا ودن ضد إسلام عن هاي ودن الشيخ هذا وشيخ هي قولنا بقول ير تاريخ ذا صوماليا وإسلام يرى هذا سقال بقول كبدن يكون يدور بقول كبدن أي جارسينيا كوي كان يسكب ده وحي إليه المدينة وكسر رئيسيو محوها أصحابتي هجرة يعني هجرة الأولى حبشة اللي هجرة سو هجرتي أصحابتي كسر بعضي هالكاس أيها سو جارسي ساسانا صحة ضد أنت إسلام نمذو يسوتشدو إن naxariistii iyo islaamnimadii ay sheegeen hayeen laga waayo oo ay gaalo aan diin lahayn aan ilaaha aqoonin ay naxariis soo doonaan ayna ka helaan ceeb intaas ka weyn ma jirto hadaa ilaahay hortiisa tagno maxaan dhahaynaa ilaahayo annaga inta isku naxariis diidnay oo muxuu ahaaye nabigeena khilaafna sunnadiisii baa inta soo cararnay baan gaalo u hooyanay kolkaas naxariis ka helnay ceeb caleena waxa aad u foolxun way ilaahay hortiisa waa la xujoobaya إلى هرتيسا هذا مركا تينا سوى هلاقني قال لا تشوقنا إلهي أسان حجة وقدقنا إلهي يودد قال أنت أنمت بعد إسلام نمذي هدي نبي محمد أنك وضنا بين تنقن كنا وناقيس الله يابين بس ساس يكون مسلم بلا عندهنا ساس سمينه ساس والبح أنا لكيرو سنوبح سنة هديك لو حجوبنا قيامة دي اللي ولا حجوبية وضنا كنا كان مد هلاك بلا قف ويري هاي الصومالية قف دب وخاصة وسوتك قف والبردي وحلك كرو كسوتك إلا دد يرمو يعني دد مسلمين أنا دد ونكسنا أنا قال أوني من تياسي ونا وبين الشيءنا وإسحامنا وإسعاينا قال هذا لفت ثير إسلامكم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول إلى يرب بل أنت هلا أوفيه ولا سويدين يا قيامها دي اللي قال كان مركب مرجع بلنا كجشي موت بلنا محوها لقى شيء إن هذا خيانين إسلامكم عم خيانه وصح وخيانتي قال كل كلية واي خيانتي إسلام لماذا عبيس بأنا كشكت صومه وحيليه مركب إلا يقوم يقانا وحال الرباء وحى شيء إن هذه كان مقضان وحى شيء هذه كان مقضان مركز مدة كله يوجد بكران هذيك الوحيلة روح أنا أعمل أيام زين وأيام دونتين واحد يشجع يوتيوب كواحد كجرا محوها أن يوتيوب كان من أصل أنا ملاين هيو يهود نمان مرتدين أو عرب يوحى سكوتشرا مرتدين أي صوص سمايان دوكيومنتري وحال هذا لغة إنجليز كقرن تاي what Western need to know وحى أبهين دتك رجال بيتك بيوحي وقدر العوان فيريا وحى شيء دينته وحى كشيء إسلامك بنت كشيء هذا قفك وصل إسلامك قرنين حتى هدو إسلام يهرنوا ملاينيا معايا يلي أنا لفتر كان دينتنا أنا عدو كويه وحنا جرين با محوها وحنا دينتو قبين با أنا لك آخر سنة مركز واحد اللي قفك وحكون رقم واحد دين دي زاقبته ويكل حد فيان آياتي كل جوينيان دقن كاجنا وأخذ بقيان وحيليه إنه كل رقم أساس وأخذ حياة صوبته دين دي زاقبته هذه مركز قال دقن كاجنا تقاطه شيطان كهو دين إلهي لا درين رهيه دقن كاج آيات أما حديث وصاق لك قصتي وإسبربر دقو يجري وساسة ودقمين وحوي وفساد نقطة قف فسادة أي نقطة مركو على كرر مع رفقي نحريس يعني رفقي ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه إن الله رفيق يحب الرفق
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى حديث الإمام مسلم ورنيه إلهي سبحانه وتعالى وأدومك سميه ترى وأطرى يا وأدمرنيا يعني الرفق صفة من أسماء الله تعالى إن الله رفيق أدومك إلهي وأدمرنيا دمرنت يا حسلك يا أطرد يا وحو الله يوحي وناكسن أو حسلك يعني كسليسن وها إلهي وكبحيو كما بحيو عنفك يا أذيك يا نعيبك يا دماتك كما بحيو هذا قفكو أدت كاتب وكل الدرية وحو كليه بلاي كوكو دعوة واحد دعوة إننا وحو يمد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مركزو نسكر رميو هاي إسلام كمركو عصبايا هاي مالبو تكاد اللي يستايقوا مسجد كوكاش أصحابته وهررين وكسك العررين ودي دافو ير النبي وكعلي عليه الصلاة والسلام نبي وكعلي مركو نبي كعلي وحيزو سكر ما يستي مركو وحيز ما يستي وحي يرى اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا بي إلهي أنيق إنا محمد بس إنه نحرس أنت قالها أو نحرسني أوفير زنيك نسك جاهل وها نبي محمد وحي أصر ريبي إسلام نبي ثابت بعد موجودة وحي أصر نبي محمد نحرستي عليه الصلاة والسلام أنت قال نبي مركو وحي كيري حجرت بابا واسع الباب وين أو إلهي إليه يا أنا أديك بس نقول صحرت عليه الصلاة والسلام مركا يعني وحال يكررها إن لك أركو صفات النبي محمد إن لك الدمية عليه الصلاة والسلام لقك النبي إن لك الدمية عليه الصلاة والسلام سين لك قال كلام مركا سيكون سما يكرنا أولا طبعي النبي عليه الصلاة والسلام قفك إنه يشهدوا روا وإنه بديا صلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنه بديا صلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا إخوة الكرام أكثروا الصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام أكثروا الصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام دردارا كي يقول حوي أكثروا الصلاة عليه أكثروا الصلاة عليه وعير إمامك وناك سنايا أيمدنا كمذا وبالصلاة عليه سهلا يكون صعيب بي وبالصلاة عليه سهلا يكون صعيب صلى النبي محمد لقول صلى عليه الصلاة والسلام وحول البو أذاك كحما أكو سهلنا هذا وحول البو أذاك يا كو سهلنا هذا الدونك وحا أو أذاك أو نبك بدن قفك نفتي زاو نبك بدن حول النبي عليه الصلاة والسلام مركو كسر الله في جهادك قال الله لا ندري هاي رجعنا من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر بير وهو جهاد النفس قفك وحو لجهاد وحا أو بدن نفتيسا وحا كليه أو أفضل ذكر نفتيسا إنه كانت كذا كثرة الصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام صلى النبي بضيع دردارك النووي صلى النبي هلا بضيع عليه الصلاة والسلام وحوليه فوائد أن لجهل أنت كله شيخ حتى هذا صلى النبي بضيع شيخ وبه نسا شيخ هو هديك له صلى النبي هذا آخرين كرينين أو هذا بدين كرين شيخ وناكسن أو إلهي وديزك وحرنا هذا لهين فالشيخ كالشيطان وشيطان الشيخ كونه قناعي حي الإسلام كونه وحلا جورينا يا ما الله شيخ الله فشيخ شيطان إن كان شيخنا شيخ الشيطان وي اجعل شيخك الصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام نن شيخ أو شيخ عبد الرحمن شيخ محمد نور اللي هذا شيخ أحمد نور اللي هذا نك محدد وين والشيوخ هذا كم ذا أو حديث آدو يقان إسلامك يعني شيوخ ذا وين كم ذي هاي قرباء ماشى اللي هذا كوح كبر طيش عبد القادر شيخ الله وحبري حمر وجوي هذا حاسة قال كعمر ولا شيء هاي أنا كسر أنا وركاين ويري أنا وحال هذا طريقة محمدية طريقة محمدية لهذا لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام جاءني فأجزني بعد ما كثرت الصلاة عليه نبي قال عليه الصلاة والسلام مركا أن بديي صلاة صلى أن كوصلنا عليه الصلاة والسلام أي إجازيسي النبي عليه لكي سادوه الشين إجازة النبي عليه الصلاة والسلام سادوه الشين رؤيديس عليه الصلاة والسلام سادوه الشين محبديس عليه الصلاة والسلام سادوه الشين اتباعيس راعديس عليه الصلاة والسلام أكثر الصلاة عليه صلى الله وسلم عليه صلى النبي بضيع عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله محمد محمودنا مرادنا لقائه يا ربي يا رحمن كن لنا بلغ مرضاتي اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه إلهي سبحانه وتعالى علماء وعدك إن وعد السيء اسم ما شاء السنة
إلهي أنا أقبله إلهي سبحانه وتعالى مجمع سجون من الله نوح رأيه اتباع النبي الله نسيه محبة النبي الله نسيه نبي محمد كور على الله نقدقه سوجد يجيف بكو النبي كورك على الله نقدقه دين النبي عليه الصلاة والسلام نولي الله نقدقه لفتي وكتج النبي عليه الصلاة والسلام دين تزكوا وين كبرت الله نقدقه كو جعل هذا ومحبة يزكون ولا هذا كل جد له والقصة صار الله نقدقه إلهي سبحانه وتعالى فرقة الضالة وهذه يوحى الله إلهي نمر عسيه إهل كان إلهي مر عسيه إسلام كان الله نوجبت باديو ومضى الله نوجبت باديو وطن كان الله نوجبت باديو وطن كان الله نوهجاجيو إلهي سكا يعفيه الله سكا يحريه علماء وناكسن وماشي نوتمد إلهي وعكبر مدحوذ نور راجيو إلهي مدحوذ نور راجيو وحا نودر دارنا إلهي نكبغنا وحا نودر دارنا صلى النبي وعابدنا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته